haweenka murtidooda baan anigu xasuustaa علي حسين حرسي إن قبيلتي الله نحرسه مركز لاجد أها أو أفيان كلاجد أها وحن حسوستا أف جدود تيبات قص الجارم دي كل شيء ذا قولدي استعمارك لا تشرتي أف جدود تيبات قص الجارم دي واللو قبراري أدنى جرم بميسيد جعل كاوسو جيسو هبونان تسيدي إسلام كاسنا قبلهم برام بريترينيين ما قبل عالم ترنيسي أو حاوى waxay tiri caalamka Soomaaliyeed oo irshiga kanu kuwii ku caawimi lahaa kama aajisaan annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile ilmahaagu kugu cayilo irkaadu irtaay rabbi oo laga cabsado waxay yiraahdeen biraha maaroobay talyaaniga in la hadlayeen markaas waxay yiraahdeen biraha maaroobay iyo buugagaaga guro talyaani waa bixitimaysaa runta waxay u kala qaadeen xafiisyada noo xiro xaashidaada buro xaqaadan lahayn xisaabtiisu weyn isla markaasna talyaanigu wuxuu na baray carruurta barayay in Soomaaliya ay tahay dhulkaygii badda ka shisheeyay lamiya batria iyo ultramare yani waa dhulkaygii buu lahaa annaguna waxaan lahayn biraha maaroobay iyo buugagaaga guro ka tag meesha marka waxay yiraahdeen gabdhihii Soomaaliyeed waxay u kala qaadeen dadkii waxay nabcaayeen isticmaalka waxay yiraahdeen konton bay ka bilowday waxayna konton nin jiray oo islaamka dhan wada karaaday oo gaalkooda hayo soo ka wado madho lixdan nin jiray oo la daba geystay waa lumaayay miyuu liibaan helaya nin gaalan laray ninkii 70 jiray oo kolkiis ka tagay oo 10 rubood siistay Soomaali kala tagee talyankii u raacay bal muxuu ku taray 8 jiray oo diinta saacideen oo siiyoro leh soo ka wad soo siiyoro le naabisay sagaashan nin jiray oo diinta saacideen oo soor ku doonayaan caawa sirabkasha boqol nin jiray oo garkiisii bidaan cadiyahay oo bi'an loo dhigin quraankiina alif ka baran bulshada israacada bal maxuu ka bulahay oo ka taray يعني أنت أنك أقال ولبان إلا وقاد بأبضناين لكن قبلها وحي أهايين قبله همدو دو هاي waayo wixii lagu halgamay iyaga sameeyay marka shir loogu yimaado busutay iyo sharbeedkii iyo wixii la cunayay iyo wixii oo dhan gabdhahaas sameeyay meeshii la sharxay iyaga laha wafti haduu tagahayo lacagtii waxay ku soo aruurin waxaan weydiiyay gabadha ururka haweenka leegada madaxda oo ay Xaliimo Godan la oran jiray iyo gabar kale oo raaxa ayaan la oran jiray iyadana waxay ahaayeen haweenka madaxdoodii bay ahaayeen waxa loo qaybin jiray dambiilaha iyo daabaca iyo koofiyadaha iyo istintiibooyinka waxa inta la gado baa leegada fan looga dhig jiray si u halgamaan qola kale oo nacaawimaysa oo dibad nooga timi ma jirin waxay ahayd waxay haystaan isku furanayeen waxaan haysan isku furanayeen marka sheekadan maanta intaan ku soo koobi karo waxaan jeclaan lahaa bal inta aan nool lahay in wax nala ka reebo waa sameynayna ma sha Allah ma sha Allah